haddaan kuu abtirsado isirkeyga waa garjante gaal jecel baan ahay saransoor mataane riyala garjante ka ah baan ahay xaflad si hersara loo soo agaasimay laguna dabaaldegay calanka beesha garjante gardheere Soomaale oo lagu qabtay magaalada Muqdisho xafladan waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano dhalinyaro haween isoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada garjante ee ku sugan magaalada Muqdisho ugu horeyn mas'uuliyiin kala duwan oo munaasabadani ka hadlay ayaa waxay ka sheekeeyeen taariikhda beesha sidoo kale aasaaska calanka waxaa leeyahay garjante yaa laga dhuumanin garjante afar waaye qof walba garjante ahay hadho kadibna cid uu ka yaasi sheego tusaale aan hadda garjante ahay garjanteygana waa riyala garjante saransoor riyala garjante garjante hadda waa labo waxa waaye garjante mataan iyo cartame aniga mataana ahay kadib saransoora ahay kadib gaal jecel ahay waa ku faanaa garjantanimada idinkana waxa idin leeyahay hal ugu faano intaas kadib waxaan soo noqonayaa xafladeena iyo dabaaldegeena waxa idin leeyahay caawadeeni cisi iyo sharaf ciid ha lagu joogo hala dabaaldego hala baashaalo farxadeena kor ha loo qaado insha Allah biidnillahi ta'ala sanad guurida saddexaad oo hadda intii la aas-aasi anta asaan laga hadlaa dhiig badana u soo daatay arinkan waqti gumaysiga la qaadi jiray ka bacdi la xurubaa la iska iloobay maxaa yeelay diinta islaamku waxay qabtaa nin walbaba insha Allah biidnillahi ta'ala calin u gooni ah waa awal baa la haajiri waxa diidan ma leh insha Allah biidnillahi ta'ala dadka islaamka inuu iswaajinay wa aslihu daata baynakum adii'u Allah wa rasuuluhu ilaahi asiri inay dadka asis wanaajin xadiis is wanaajiyaan ilaahay ay ka cabsadaan ay isfartoomaan Allah ka cabsi isfardoomaan waqtiga ilaahay ay tukudaan odayaal hadaan anigu saasan ku dardaarmayna insha Allah biidnillahi ta'ala soo ku nool yahay iyo walaalaha la dhashaba iyo wuxuu oo dhalaba meel kasta ay ku nool yihiin waxaan ilaahay ugu baryayaa sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo inta meeshaan fadhida ay ka soo qayb gashay ee xafladan soo abaabushay hadii yaani bishi hadii ay 25 senti tuurto waa meeqa 25 senti markay tuurto 200 ruux taqriiban 25 senti meeqay noqon kartaa waxaan rajaynayaa marka iskaashiga dunida meelaha laga dhaliyo waa taas jaakumullahu khayran aadan idinku mahad celinaynaa waxaan boorinayaa dhalinyaradii soo abaabushay barnaamijkan ee intaan soo gaarsiisay waxaan leeyahay hore u socda GGS oo dabaaldegeena farxadaas anina aad ugu faraxsanahay dhammaan inta soo qayb gashan waxaan rajaynaynaa saas ugu farxadaan marka waxaan leeyahay hambalyo dhamaantiina marka waan soo dhaweynayaa soo dhawaadaan leeyahay dhammaan marti sharafta mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhawaada marka waa dad wada dhashay oo hal wiil iyo aabihiisa meel ay kala jiraan male waa hal qabiil kaliya bas halkii qabiil baa marka ilaahay intuu badiyay dhowr qabiil ay ka farcameen marka insha Allah sidaas aan isku ognahay waxaan mar walba aan garab taaganahay aan u taaganahay oo aan sugaynaa sanad walba sanadkii ka dambeeyay meesha hadda ay wax marayaan inay ka sii dhaqaaqaan baa la rabaa beelweynta garjante gardheere Soomaali oo dal iyo dibadba joogto waxaan leeyahay garjanta waa liwaaxyada gardheere Soomaali ah dhalasho ciil uma qabnin waxaan nahay curadka sagaalka Soomaali aad baa ugu faraxsanahay farxad weyn bay tahay waxaan idin leeyahay soo dhawaada garjante hadii anaga magacaan u sameysano oo magacaan kor aan u qaadanin cid kor noo qaadayso ama nagu maqan ama noo iimaanayso ma jirto aniga kor isku qaadi karno oo meel kasto aan tagno markii garjante aan neeraano oo la dhigi karo qofkan waa dadkan waa la yaqaana urdada laga kaco urdada dhaafo hal isfahmo hal isgarto qof walba meeshuu joogo inkastoo dadkeena ka xishoodaan qabiilka way ka xishoodaan runtii dadka cideena meesha beelweynta garjante qabiil marka la dhahaa way ka xishoodaan laakiin si tira ilaahay wuna siiyey waan badannahay annagoo dhan waxaan nahay garjante gardheere Soomaali garjante gardheere Soomaali waxa waaye ma sha Allah dhalinyar badan nabadoonyaal badan maamooyin dhammaan inay nagala soo qayb galaan xalfadan aad iyo aad u weyn hambalyo ugu dambeyn muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya beelaha samaysanaya
calanka iyaga u gaarka ah. maxamed ruuraay warbaahinta goobjoog muqdisho. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamiil uga shubo xirmooyinka adeega dhamays plus adeega idahab code numberka xidig 104 gees. adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. macaamiil xirmooyinka adeega dhamays plus nafsadaada ku soor.